الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta ay tahay bishu maaris 30 waxaan rabaa insha Allah taala inaan dhowr qodob ka ilaahdo dad bariyahan dambe ka soo hadlayay gobolada Hargeysa iyo Burco inaan dhowr qodob ka ilaahdo oo qaybtood sheeganayeen isimo qaybtoodna sheeganayeen uqaal waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo muhiim ah ka ilaahdo ilaa Koosaro uga sheegto Hargeysa joogo waxaan leeyahay waxaan ku oranayaa Koosaro nin xun yahay hadalkiis ku eeg waxaad shalay tiri markii aad hadlaysay ismadii koonfur ka yimi maxaa loo leen waayay waa in la laayaa waxaan ku leeyahay annagu Soomaalinimada ayaa bridge noo ah iyadana deeqda cid kasta oo Soomaalinimada iyo calanka hoos harsanaysa Soomaaliyeed waa walaalaha iyo gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay oo aan ninka aan hawada u marinaya adiga hadalkaagu waa isku eegtiin ismada iyaduna uma jawaabaan nin feego isi sheeganaya ama nin jiriya oo ilaahay duu ku roon yahay meelaha lagu qayla ka soo dhaxadla ismada iyadu xaashaalilaa uma jawaabaan annaga iyaga uqaashaaba waxay nagu tahay dalqaaf inaanu u jawaabno ilaahay duu ku roon yahay Koosaro kale laakiin waqtiga iyo aaminta lagu jiraana faraysa inaanu kula hadalno waxaan ku leeyahay adigu waxaad lahayd ciidanka Soomaaliland ama qarankaad sheegaysay madaxweyne awooda ku qabtan la saacanood Hargeysa ka soo dhaxalaysay laakiin aniga garbahayga taagan yihiin kuwa xaq dururka ay dalka iyo dadka halgameeyay dalkoodii dadkooda difaaciyay anigu fulinimo Hargeysa uga soo qeylmayay jiida hore kala soo hadlaya xabadana gacan baan ku ridaynaa gacanta kalena waxaan ku cunaa hilibka iyo caanahan ku cabaynaa laakiin idinku waxaad lahaydeen xalay hadaladina waxa kamid ah milix iyo cunay sonkoriyo anagu aad hilib iyo caana anagu cabaynaa xabadayna la dhacaynaa sidaas ragay garbahayga u taagan yihiin aqal Hargeysa ka soo dhaxooyimayne waanu idila diriraynaa anaga uqaashiya qoriga ridayna ismada iyaduna idinkoo kale uma soo jawaabaan haday u soo jawaabaan anaga u jawaabno la hadalla taati Koosar baan kale yahay kale waxaan kale yahay nimankii erir Soomaali bariyahan sheegayo ka hadlayay mid eelka surradii wax sheeganayay iyo xamar ka hadlayo waad aragtay nimanka Allaahaydan walaalaan naayo wixii hadda aad sameeynaysan Allaahaydan waxba erir Soomaali hal Allah ay yiraahdeen nimankii hawiyo ka yiin xamar waxay erir Soomaalinimadii waxay idinku jawaabeen nimankii xamar ka yimay ismada ay soo jireenka Eegaas Maxamuud hogaaminayay waxay yiraahdeen nimankii erir Soomaalinimada ku sheegaysanaysaa waa in la laayaa oo gacan lagu qabtaa bira oo la gowracaa marka annagu waxaan leenahay cid kasta oo Soomaaliyeed waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhaweynaynaa teamka ina bixi iyo intii hoos fadhida oo systemkaasa xarbi iyo dagaal baa naga dhaxeeya waxaan leeyahay seeftayadu wallahi seegi mayso kuwa ka hadlayay meelaha maanta la dhoodban wareegaynaa iyo maayar ku xigaan baan nahayo wallahi xabada laga dayn maayo ninkii reer Soola oo wallahi saaq dhinac istaaga wallahi dadkeenana guuleysanaya guusha iyo gobnayaga ku dambeynaya ninkii iyaga daba istaagay kii ka hoos wareegow waanu ognahay in la yiri dad xun la ka baalaydin siinaya wiilka meelaan ka qaynlay kamid yahay waxaanu ognahay inay wali qof ku wareegayo waxaan leeyahay odayaashii reer xudun ee ninka ka soo jawaabay waad mahadsantiin dareenkiina aad cadayseen harti oo dhan baad ka farxiseen wallahi nin kasto daba istaaga maanta reer Isaaq iyo systemka Hargeysa ka jira wallahi haduu walaalkay madaxa laga jaray anana ugu horeynaya wax laga weydiinayna ma jiraan ciidanka aad leedahay Muuse talaabo military buu qaadaya dhamdhaaweedina soogayne wixii ka dhacay Sool waa looga dhulbaanto kaliya Soomaaliland la dagaalamayay bilyaabaf afkay waxa way dhulka ku dhufatay Soomaaliland kaba ay dib ka tuureen saraakiishaada waxana carareen waxana jiifaan dhaawac yihiin insha Allah dhowrka meelahan ka qaylqaynlayana wallahi anaga ugu tagayna meeshay joogaan isugu meeyno waxaanu idin leenahay waxba nin Burco iyo Hargeysa ka soo hadlayo jiida isku keena dagaalku waa naga go'an yahay hartina waa qoys waxba marba ha oranina maxay u tagi waayeen dadka doolaalada ku yimi Cabdidheere wuxuu rag baa doolaala ku yimi harti waa family Maxamed Abubakar oo kale la mid yahay harti iyo Isaaq oo daarooda siman baa dagaalamaya wax allaale waxa haysan waxba ha la harinina idinka iyo ninka Djibouti jooga iyo dhamaantiin iyo intii iskaashatay ee Taiwan ka sheegayseenba waxba waxa haysan soo daaya jiidaynu isku imaanaa billahi tawfiiq